tilmaamay inta badan xogaha iyo warbixinaha ay dadka Soomaalidu ka hayaan ayaa aad u kooban marka waxaan isleeyahay waa buug dhacdooyinkiisu xiisihiisa leeyihiin buugga oo marka hore kulley luqadda carabiga ku qornaana waxay muujinaysaa awoodda iyo kartida uu qoraagu u leeyahay inuu soo turjumo luqadda carabiga erebixinta la isticmaali karo iyo ereyada runtii uu qaniga ku yahay marka waxay kulley xogtaan ka hayaa ama ka ogahay buwaagtuu turjumay inay tahay buwaag luqadda ingiriisiga ku qoran iyo buwaag luqadda carabiga ku qoran marka xog noocaasa oo luqadda carabiga ku qoran inuu noo turjumay oo waqti geliyey cabdirasaaq cabdirashiid waan ku bogaadinaynaa waana ku hambaliynaynaa waxaana muujinaysaa inuu luqadaha qalaad ee luqadaha carabiga iyo ingiriisiga uu cabdirasaaq ka dhisan yahay waxaa kaloo had iyo jeer akhrinta buwaagta iyo inuu runtii qofku dadaal noocaasa bixiyo oo uu turjumaa waxay ku baraysaa habqoraalka buwaagta iyo runtii sida uu qofku usoo gudbin karo mustaqbalka isugu dayi karo inuu qoraal noqdo dhacdooyinka hareerihiisa ka dhacayana uu noqon karo qof soo turjumi kara qof soo gudbin kara qof qoraal ahaan inoogu soo gudbin kara marka buuggan caawa aynu runtii kasoo qayb gallay munaasabadiisu waa buug uu soo turjumay xog runtii muhiimina ay ku taalo arrimaha runtii wardoonka iyo intelligence-ka marka laga hadlayana dowladaha waaweyn ee adduunyada iyo dowlad kastoo dad waxa weeye adduunyada ku taalaaba ammaankeeda iyo amnigeeda qayb bay ka tahay waxaanay ka mid yihiin hay-adaha ugu muhiimsan ee had iyo jeer ama miisaaniyadaha ugu badan lagu bixiyo ama runtii aadka loo daneeyo si waddanka amnigiisa wixii dibadda uga baxsan iyo waxa gudaha ka socdaba ay ula socoto dowladu waliba adduunyaduna maalinba maalinta ka dambeysa qalabka technology-ga ee runtii sii horumarinaya wuxuu keenayaa sirdoonka iyo wardoonka qaabkii loola dhaqmi jiray qaab runtii aada kuba laga soo ama ka adag in ay runtii dadka xirfaddaa baranaya ay ugu diyaargaroobaan oo maadaama technolojiyadii horumartay qaabab kala duwan uu qofku markaa wax badan kusoo ururin karo markaa dadka waxaa la idhahdaa intelligence-ka ka shaqeynaya waa dhowr qaybood dhowr section bay loo qaybiyaa qaybi waa qaybtan dee xogta iyo informationka soo ururisa la idhahdaa qaybina waa qaybta had iyo jeer stageka ugu dambeeya analysiska marka waxaa lagu macnayn karaa runtii marka xaashi la soo qaado humaag ama sawir qofkii ha noqdo ama xayawaan ha noqdo object waraaqdii marka la jeexjeexo wararkaa kala duwan la isu keenaya waa waraaqda inta la googooyey lagu dhaado dib isugu hagaaji imagekii guud ama humaagii ay lahayd walaxdaasina dib u sawir informationada kala duwan ee dadkan runtii xogta soo ururinayaana waxaa la doonayaa inaad saasoo kale isugu beegbeegto markaa dad hibo u leh ama aqoonteedii bartay oo u soo jeeda ayaa arrimaha noocaas oo kale ah waayo waxaa la eegayaa qof marka mission loo diro qofkan idaacadnimadiisa qof keliya wax lagu halayn karo waa mas-uuliyad ka weyn go-aamada la qaadanayana waa go-aamo ka adag marka inta badan dad kala duwan baa loo diraa mission keliya dabeetana informationada kala duwan ee la keenay ayaa hadhow la isu beegbeegayaa inta ismaajkaraysa markaa go-aamada u dambeeya lagu qaataa baa la idhahdaa runtii markaa waa mawduuc xiisihiisa leh dhalinyarada sharafta leh ee soo sharaftay qoraaga da-daya leh cabdirasaaq sandheere aada iyo aad baan u bogaadinaya tacabkii uu soo geliyey iyo juhdigii uu soo geliyey iyo ereyadii runtii waxa laga yaaba dee luqadii uu garanayay inuu in badan kelmado ama vocabulary oo ku adag inuu runtii u doonto inuu buug kale oo dictionary uu kasoo turjumi karo cid kale ula kaashan karo waqti badan buu gelinaya marka waynu dareemi karnaa luuqad qalaad af ku qoran oo mawduuc noocaasa laga qoray oo xiisihiisa leh waxaabaan u baahannahay inaan dhallinyaradeenu inay waaqicooda iyo runtii xogta ay ka hayaan arrimaha noocaasa in iyada lafteeda la akriyo oo la dheegto oo xogaha noocaas oo kale oo qofku wax ka baran karo bugaagta noocaasa sidoo kale qofku waxay ku dhiirigelin kartaa isaga laftiisu inuu isku dayo inuu mustaqbalka noqon karo dee qof cabdisaaq oo kale ah oo luuqadiisa dhisi kara bugaag kale soo turjumi kara wax qori kara dadkiisa wax uga tegi kara marka runtii sharaf bay noo tahay waan ku dhiirigelinayna waan ku bogaadinayna cabdirasaaq dadaalkaaga halkaaga sii wad dadkaaga iyo ummadaadana maalinba wixii aad soo gudbin karto hadday noqoto bugaag aad soo turjunto iyo haddii ay tahay bugaag aad qortaba waa runtii waa wax muhiima oo dadkaaga iyo bulshadaada uga tegayso waxaan halkan ka dareemi karnaa inay kuu qaadatay copyright-kii inaad hesho inay u baahan tahay runtii in procedure-kii loo baahnaa iyo habraaci loo baahnaa
inaad ciddii daabacday xaqii iyo xuquuqdii runtii qofkii qoraalka ahaa uu soo gudbinayey intaa lafteeda wax loo dhigaaba jirin waxaa laga yaabaa qofku in marka toddobaad ama bil ama dhowr bilood ay kugu qaato inaad xog noocaas hesho in lagu ogolaado inaad buuggaa turjunto dadka badankoodu runtii waxay nagu adag samirka laakiin inuu u dhabar adeygay inuu waqti badan geliyey waa runtii arrin loo baahan yahay waxaanad muujinaysaa un kartida iyo halabuurnimada qof kastoo dhalinyari maanta waqtigaad hayso berri ma haysi marka inaad noqoto qof taariikh ka taga inaad noqoto runtii qof halabuur leh inaad noqoto qof sidan oo kale caawa oo kale loo soo camiri karo marka isaga iyo dhalinyarada kaleba waynu ku bogaadinaynaa sharaf baana inoo tahay aada iyo aad baan u bogaadinayaa kelmadda aan ku darsanaya waxay tahay kulley aniga saaxiibkay xildhibaan Fuaad oo Cabdisaaqna macalinkiisiiya maadaama aan dee madashan ka soo qayb galay kulley golaha wakiiladu wuxuu leeyahay maktabad kooban marka maktabadda ayaan jeclaysanay inaan insha Allah 40 buug u qaadno oo aan haddii la yiraahdo golaha wakiilada ciddii danaynaysa ama la soo booqato ama xildhibaanadu akhrisan karaan marka Cabdisaaq oo garab taaganay waynu ku bogaadaynaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin dhalinyarada sharafta leh wiilalyaha labe ee soo sharfay walaalkeen Cabdisaaq Cabdirashiid buuggan uu inoo soo turjumay caawa laga soo qayb galay cid kasta oo wadaana ay ka qawaato oo ay iibsato inuu ku dhiirigelino tacabkii uu soo galiyay sharaf bay tahay aad iyo aad baan salaamay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh